salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. asxaabta sharafta badan ku soo dhowaada channelkeena wax ka baro channel. waxaan maanta idiin soo diyaarinay barnaamij la magac baxay sirta guusha waxbarashada. ku soo dhowaada barnaamijkeena maanta. دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما waxaa mahadoo dhan iska leh allah. isaga ayaan u mahadnaqaynaa oo kaalmaysanaynaa. intaas kadib waxaan halkan ku soo bandhigi doonaa qodobo xasaasi ah oo kaalmaysan doona arday walba una suurtagelin doona in uu noqdo ardayga ugu wanaagsan fasalka. waxa aan shaki ku jirin in qof kasta oo ku nool dunidan uu jecel yahay guusha. guushaas oo ah dhinac walba oo noloshiisa ah. wuxuu uu jecel yahay inuu ka dhabeeyo hamiga uu xambaarsan yahay. wuxuu qof kasta jecel yahay inuu ka gaaro mustaqbalkiisa guul, kuna noolaado mustaqbalkiisa guul iyo sharaf dadka dhexdiisa. tani waa sida uu allah subxaanahu wa tacaala u abuuray dadka, inuu qof kasta jeclaado inuu guulaysto. guushu keliya ma ahan in la helo dhibco iyo darajo sare imtixaanka oo caan la baxo, laakiin guushu waa karumeynta uu qofku ka dhabeeyo awoodiisa iyo siduu ugu faa'iidaysto kalsoonida naftiisana ee sii korodho. waa ka barashada wixii tegay iyo ka faa'iidashadiisa. guushu waa in aad garatid waddada aad ku socoto iyo halka aad u jeedo iyo waxa aad rabto. dadka guuldaraystay waa dadka ka faa'iidaysan garan waayey nolosha ee wax ka baran waayey waddooyinka loo maro guusha. markaas waa laga maarmaan ah inuu qofku barto waddooyinka guusha si uu ugu dhabeeyo hamigiisa iyo riyadiisa. waxa aad kaga dambayn kartaa hamigaaga markii aad ka faa'iidaysanaysid nimcooyinka waaweyn oo allah subxaanahu wa tacaala kugu deeqay, sida maskaxdaada, shaqsiyadaada, aqligaaga, fikirkaaga, awooddaada iyo kartida kale allah uu gooni kuu siiyey. ku soo dhowaada 5 qodob ee ardayow kaa dhigi doona ardayga ugu wanaagsan fasalkaaga. qodobka koowaad, waxa aad noqon kartaa qof guulaystay inaad nolosha ka eegto dhinaca wanaagsan oo aad filato dhinaca wanaagsan. qodobka labaad, inaad noqoto qof nidaamsan oo ku kalsoon naftiisa. inaad dejisato hadaf oo aanad ka harin ilaa aad gaadho hadafkaas. qodobka afraad, inaad isticmaasho awooddaada ilaa aad goosato midhaha shaqadaada. inaad habaysato waqtigaaga. guushana waa dhaqan ka mid ah dhaqamada wanaagsan ee muhiimka ah, waana waxyaabaha asaasiga ah ee la rabo in la horumariyo oo la kobciyo oona la wanaajiyo si joogto ah. abu hurayra allaha ka raali noqdee waxaa laga wariyey inuu yidhi, waxa uu rasuulka yidhi sallallahu calayhi wasalam, mu'minka xooga badan ayaa ka wanaagsan ilaahay agtiisa looga jecel badan yahay mu'minka taagta daran. wixii ku anfacaya ku dadaal, allah kaasho oo ha ka caajisin. haddii shay ku asiibo ha odhan, haddaan sidan yeeli lahaa sidaas ayay noqon lahayd. laakiin waxaad tidhaahdaa, allah ayaa qadaray inay sidaan dhacdo, allana siduu doono ayuu yeelaa. maxaa yeelay kelmadda haddaan waxay furtaa camalka shaydaanka. imaamu muslim. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. si aad u hesho muuqaalo ku xiiso geliya, subscribe oo ku soo dhawow channelkeena wax ka baro. ugu yaraan hal qof gaarsii linkiga channelkeena wax ka baro. bye bye.